sidii waxaan noqon lahay nafura oo laba jiro marbaan wada neefsanayn marbaan wada nuuxsanayn marbaan wada noogilayn hadduu nabarka damqado axwayo dhanlayniyadu kashaadiinuu jilay dareen naxariis wato nabdiga quustiyo sawiga nadaabada weheshada naruura ku soorilay Studio 24 TV. Mayada. Mayada. حاسي غير أولي جدا دروس الشخصية جبا سبب وما حي سببتك هو كلي فكرتها نكن إن أدي أجبت ما حتى ما ينسى فرزة واني شرفني جواب أيان كادونية ما أنا كأقلانها أديكوني جواب إن هذا قتكتا واللي بس لا هذا يجواب نكين أياس محكوك صوصعوا في رزق يا قيس كل شيء أياس هاي أكاني يا قيس صوصعوا هذا الكيكة مقلي صورة أوكي صوصعوا ما حد سمعنا سائرتان ما حاسو أقلات أرنتان إيشك سبب dadkoo dhan su-aashan ayay weydiinayaan marwa hawel welin aniga isbeddel iguma iman هاي كدبنا baraag waa gabar weyn anagana arrimaheeda kama hor imaan karno go'aanka nolosheedana ayada ayaa goyn karta waxay rabtay samaynaya waan ogaha aniga gabadheeda baraag go'aan adiga aadan ku ogeyn maba samaysaba wax walbana adiga ayaa la og teeda kale wax kasta adiga ayaa ka hor istaagi jira midaana waad ka hor istaagi kartaa sabab baad ugu raaxaysid maxay tahayna soo adiga walaalkeeda ma tihidna arrinta maxaad soo farageli laadahay maxaad guriga ugu soo celi weysa ii sheeg marwa waan awoodaa isbitaalka inaan ka saaro laakiin ma awoodo jacaylka ayaa soo qabta qalbigeeda inaan ka saaro adiga sidaa banaan waad madax adagtay dhibaatadeennu ma dhammaanayso waa inaan dulqaad yeelnaa si aan awood u yeelano mafahan jacbisusukidinigada فيروزة بلان أياد إيجا قادانيجا وحد إيجا بلان قادينا تكفوغاني سيدارتان واي أباها حبسي قوة كصوبحي وحاني سلها عيارتو دون واي دمات لكن إلا هذا ما يسان دماني محيطة عيارتان عيار ما جبت يا أخي وما حي عيارتك هاد ليسني كاسن هو أبي أقف كان هاي ما حد عاي سببت جور كيسو كوكو قصبت محيطة يسك معاك كوكو كليفري سبب أياد جبت صومها فيروزة مية maya maxaad ola jeedaa guurkiisa ma adiga ogolaaday ha samaynin firuza laba maalin ka hor aniga ayaad igu tiri jaceylkaagiga ma uusan rabaa waxaad kaloo igu tiri eertaa inaan ka fogaada ayaan rabaa maxaa hadda isbedelay firuza waa maxay hadafkaaga ujeeddadaadu maxay tahay caddee hadaf aan leeyahay ma lahan artaan waa jeclahay waana intaasoo keliya maxaad iigu soo noqnoqonaysaa
waan jeclahay maxaad ka waddaa kaale maxaad ka waddaa waan jeclaha ma waxay kula tahay inaan aaminay hadalkaas waxaan qaadan kara maaha amin amba ha aaminin intaan wada jirka ahayn ayay arrintan dhacday anigana ma aqaana sababta ay ku dhacday warka badanna iga yaray jacaylkan fudeed badana inta yaraado aad la joogtay miyaad jeclaatay misna aad ku guursatay ninkaas haa way dhacda weliba way fududahay ma aaminayo firuuso waxaad ku hadlaysa ogow wax walbood haddii ii sheegaysid waxaan aamini kara maa runtana waan soo ogaanayaa firuusa ayaas yaqiin naga jooji waad ka badbadinaysaa aniga wax walba waan kuu sheega sabab jirtana ma lahan aabay xabsiga wuu ka soo baxay artaan aniga waan jeclaada kadibna waan isguursanay maxaad ii fahmi laadaa kaal adiga guurkiisana wax gooniyo igu qasbaaya ma laha dhibaatada ma jirto maya waxaan aamini kara maaha adigu artaan ma jeclaan kartid maya ma aamini kara maxay kula ahaydna markaad iga fogaatay inaan kaasoo daba cararayo oonan ku iloobeynina waxaad hore iigu sheegaysa been miya ahayn soo ima dhihin jacaylkaagagama goorin maxaa dhacay hadda soo ima dhihin derbiyada xitaa nama kala celin karaan labadeenna ha samaynin firuusa waxay ila tahay inaadan ifahmin wax walbana warqadahaas ayay ku qoran yihiin waadna fahmi doontaa aniga ayaa dilay abay hal habeenoo keliya kuma baanay balse wuxuu ku baahana noloshayda inta ka dhig inaad gursato sabab ayaa ka dambaysay ii sheeg sababta firuusa aniga ayaa keligay la soo hadlaayo Neden evlendin Firuze? Bir sebebi var. haye firuusa ma aqaano ma fiican tahay abaay hooyo ilaa imika maanad jawaab helin aniga go-aankayga kama noqonayo waa sida ku ogeed beela ayaa tahay marwada yareed haddii aad qaliinkan gashay waxaad ogaataa xiriir walba oo labadeena naga dhexeey adiga ayaa burburinaayo mar kalena hooyadaad quruxda badneed wejigeeda inaad aragta lagama yaabo maxaan sameeyaana ii sheeg aniga go-aan ayaan leeyahay go-aankaygana waan qaatay haddaad igu soo raacayso welcom haddii kalena hooyo nolosheeda igu fasax aniga go-aankayga waan qaatay qalinkana waa bilaabmayaa aad ayaan ugu xumaa gabadhayda run ahaantii ma sidaasa waan imaaday hadda baraag mala hadashay go-aankeeda ma bedeshay
markii aad ka baxdo gabadheeda waxaad u baahanaysaa qofku daryeelo micnahayga aniga ayaad ii baahan tahay waad fahantaan u malaynayaa gabadheeda wax walba gabadheeda waad ka shalaanaysaa aa hadda samaynaysid haddii ay wax kugu dhacaanna indhahada gu haynaysaa soo ma aha marow banaanka ma usoo bixi kartaa doctore sidaan la hadlayaa doctore xaaladeyda waa sidee dhaqso aan qaliinka u bilowno marow iga raali noqo adiga qaliinka ma geli kartid ma ku fahmin sidee wuxuu jiraan adiga baaritaanka waad samaysa wax walbana waa okay wada tegi sababta uur ayaad leedahay weliba uur 9 isbuuc kuma fahmin uur aha adiga ma ogid miya maya daawad yaa mustaqbal aniga wax uure iskuma ogeyn lagu tarjumay balse hadda wuxuu kugu soo baxay waxaana rabaa inaan kuu sheego adiga qaliinkaad inaadan geli karin imika hooyo miyaa noqonayaana hooyaan noqonaya hooyo qof miyaad u sheegtayna maya waa fiican tahay waxaan kaa doonaya inaadan cid u sheegin maxaa familkayga xaaladooda way iska adag tahay mana garanaya qaab baan ugu sheegay iyaga waxbaa ka cabsan anigana qofna uma sheegayo hooyo hooyo safiya hooyo safiya maxaa ku dhacayana ii sheeg adigana maxaad qabanaysaa imika gabadheedana sideeda ninkan xunka ayaa siisay ilaa hadda waxay fahmaysa ma lahan maxaad ku samaysay gabadheeda ii sheeg maxaad ku samaysay gabadheeda gabadhiina hadda waad kacaysan kartaan faraag wata ee gurigiina geysta hore umaanan ogeyn hadda ayaan ogaaday balse asxaabteeda ayaan wacay iyagaa ii imaanaya inta karaankaygana anigaa dadaalaya nasiibkayga ayaan ka warsugaya idinkeediinma bahni waad mahadsantihiin walaal maxaad sameynaysaan adiga abbaay adiga waxba ma ogeed reer dameerkan inay ku burburiyaan mooye galaas biyaha kuma siinayaan keli ayna siiyaan warkeeda daayay waxaa noo wanaagsan arrimahooda inaan isaga harna baay digtooreeso marwo safiya maxaa ku dhacay marwo safiya maxaa dhacay maxaa ku dhacay hooyaday kaale wax ii sheeg hooyaday maxaa ku dhacay dhaqso waqti yar ayaan haysanaa seerada wadnaha soo qabo waayahay digtoore haye dhaqso isfududay bilaab hadda mar kale ku celi waayahay dhaqso haddana ku celi mar kale isku day ayaa maxaa dhacayna hooyo safiya sidee tahayna dhammaantiin waddada ka leexda boosna siiya anaga saanka dhaha noo firaaqaya waddada haye inakeena banaankaan ku sugaynaa soo baxa baraag iska bax aniga halkan ayaan joogayaa waayahay inakeena
badbaadina way adag tahay titoresa waxaan ahay ina safiya kogmaas xaaladeeda iga waran sidee tahay run ahaantii waxba kama sheegi karo titores kalkaaliso titores kaale sababtii sheeg sabab ila hadal maxaa dhacay aad ayaan ugu xumahay safiya kogmas way dhimatay daawad waa mustaqbal daawanaysa waxaa lagu tarjumay studio African TV hooyo wax walba aan awoodna waan sameeyna balse hooyo hadda jaaniska lama heysano mideeda kale ani waxaa la yaabana ayaas asaga hooyadiis muxuu kelida ugu bixin waayo operationka u fulin waayo markoo dad kale u tuugsanayo haddii ay isku keli ahaan lahayn ma waxay kula tahay qof kale inuu u baahan lahaa ninkaas ayaas la dhahay gudihiisa wax ku jira cid ogaan karta ma lahan mana fahmi kartiin yaa tahay adiga horta yaase awood kuu siiyey inaad hadalkan igu tiraahda aniga damiirkayga ayaa xaqiisiiyey midda kale adiga qof kuu jawaab waad weysa sax waayahay abaayo isdeji oo keliya safiya allah u naxariisto hooyo hooyo dhoola caddayntaada maxay nooga fogaatay hooyo maxaad waxaan u samaysay aniga darteed maxaad naftaada halis u gelisay sidii ayaad samaysay
wixii ayaad samaysay hooyo aniga dartee ayaad naftaada u goysay hooyo 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 हुए बेचैन पहली बार हमने रात